السلام عليكم سودو هذا ninkaan horta ka muuqda u jeedin ninkaan saaxiibkiis ayuu dilay oo sicir u dilay saaxiibkiis misna wuxuu qirtay inuu saaxiibkiis dilay in la toogto rabo in oo bartii uu ku dilay saaxiibkiis oo ka qaado misna oo ka carray xaqa markuu ka hadashinayo waa noocaas oo kale ninkaan saaxiibkiis ayuu halkaas ku dhuftay faas ama bud oo u dhintay bartii ka qaaday guriga ayuu geeyey maanta maxkamadda waxaa ka hor qartay in asaga la toogto oo maanta dhiiggiisana ismaartay banaanka laga keeno bal waxay aad dhegeysan ninkaan xaqa markuu ka hadashinayo waa noocaas oo kale bitu inta labada bartaana u geli meel kale kuma dhufan meel kale wax ma ka gaarsin ninkaas walaalkay ana gacantay ku sawirsaday waxayna wax qoranay ahayn qadar ah ninkaas walaalkay horta ninkoo meesha soo istaagay meeshuu fadhiyay meesha markaa fadhiyay aadan dhaayo wuxuu saarnaa gaariga aniga ninkii waa u tagay aadankii u tagay taleefanka kaftan ah oo qaaday taleefanka markaa kaftan ah oo qaaday inta gali inta markaa gali marhuumkii wuxuu dhahay afeeyo taleefanka keen inta gashatay tuuga tahay keen walaalow ma aan wada ninka turjumaan ma u taayaan ha igrabta walaalkii taleefanki waa kana mana dhiibayaan aadankii ma joogin markaa saas oo taleefanka iska laha ma joogin aadankii uu baxay taleefaha u taay taleefaha ayaa isoo wacay taleefaha markuu isoo wacay taleefankiis ninkaas adama hay tale waa la kaftama ana haayana taleefankiis intuu igu jira ana haay waan siina oo iimaa taleefaha waa si ku soo ninkii marhuumka ilaa uu nadeesto walaalkayga waa qaaday inta aan qaadin tariiqo wuxuu dacwona muka kadib maxaa dhac markaas markuu ninka dacwada ku maqnaa oo tuuga tahay taleefanka dhiib uu ku dhac marxuum farq uu qabsaday waa ila dagaali dhishii ku saarna ama wax kugu dhuftaa isdha dhishiikaas ama kugu dhuftaa ilaa labada qof hadees dagaash ani qori wax maraadin asi dhishii ku saarna farq markuu qabsaday oo dhishiika u buuday dhishiikiya ka soo riday aadanka soo maqon dhishiikiya ina soo qabtay soo riday marka soo riday waa laba jiraa ka bax mudkiya u soo qaatay sidii yaa meeshii horta marxuumka walaalkayga ah qadartiisa meeshii ka soo gashay oo wax maadaama marxuumka afka ka hadlay oo ku dhahay tuuga tahay taleefkaada hay dhiib oo ku dhahay adiga soo ma hayna afka hadashid ma heno waa ahayd laakiin waxay wax qadar ahayd wax amal oo qadar ah ninkan hadaa dhar baxay hadaa nafta waa ka bixi kartaa wax sabab lagu soo qoray waa hadaa dhar baxay hadaa nafta waa ka bixi kartaa an ninkaas qadartiis ilaahay ay ugu soo qadaray ninkii walaalkayga gacanteeda ku baxday ushiya ku dhuftay uu ku dhintay waa qaaday walaalkay kama tagin bitu inta labada bartaana u geli meel kale kuma dhufan meel kale wax ma ka gaarsin ninkaas walaalkay ana gacantay ku sawirsaday waxayna wax qoranay ahayn qadar ah ninkaas walaalkay horta ninkoo meesha soo istaagay meeshuu fadhiyay meesha markaa fadhiyay aadan dhaayo wuxuu saarnaa gaariga aniga ninkii waa u tagay aadankii u tagay taleefanka kaftan ah oo qaaday taleefanka markaa kaftan ah oo qaaday inta gali inta markaa gali marhuumkii wuxuu dhahay afeeyo taleefanka keen inta gashatay tuuga tahay keen walaalow ma aan wada ninka turjumaan ma u taayaan ha igrabta walaalkii taleefanki waa kana mana dhiibayaan aadankii ma joogin markaa saas oo taleefanka iska laha ma joogin aadankii uu baxay taleefaha u taay taleefaha ayaa isoo wacay taleefaha markuu isoo wacay taleefankiis ninkaas adama hay tale waa la kaftama ana haayana taleefankiis intuu igu jira ana haay waan siina oo iimaa taleefaha waa si ku soo ninkii marhuumka ilaa uu nadeesto walaalkayga waa qaaday inta aan qaadin tariiqo wuxuu dacwona muka kadib maxaa dhac markaas markuu ninka dacwada ku maqnaa oo tuuga tahay taleefanka dhiib uu ku dhac marxuum farq uu qabsaday waa ila dagaali dhishii ku saarna ama wax kugu dhuftaa isdha dhishiikaas ama kugu dhuftaa ilaa labada qof hadees dagaash ani qori wax maraadin asi dhishii ku saarna farq markuu qabsaday oo dhishiika u buuday dhishiikiya ka soo riday aadanka soo maqon dhishiikiya ina soo qabtay soo riday marka soo riday waa laba jiraa ka bax mudkiya u soo qaatay sidii yaa meeshii horta marxuumka walaalkayga ah qadartiisa meeshii ka soo gashay oo wax maadaama marxuumka afka ka hadlay oo ku dhahay tuuga tahay taleefkaada hay dhiib oo ku dhahay adiga soo ma hayna afka hadashid ma heno waa ahayd laakiin waxay wax qadar ahayd wax amal oo qadar ah ninkan hadaa dhar baxay hadaa nafta waa ka bixi kartaa wax sabab lagu soo qoray waa hadaa dhar baxay hadaa nafta waa ka bixi kartaa an ninkaas qadartiis ilaahay ay ugu soo qadaray ninkii walaalkayga gacanteeda ku baxday ushiya ku dhuftay uu ku dhintay waa qaaday walaalkay kama tagin